بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وما ضاع من الثمن من مال المفلس وما ضاع وحي dhumo oo min الثمن lacagti xoolihii ninkii mfliska ay lacagtiisa hadday dhunto fa min maali الmflisi ay ka dhumeen مثلا ninkii xaakimka ahay yaa xoolihii ninkii mufliska ahay oo lagu xukumay mufliskii nin cadli u dhiibay ninkii cadliga ahay xoolihii markii la gaday lacagtii loo dhiibay lacagtiyaa ka dhuntay ninkaas cadliga yadu amaana waay marka waxaa la leeyahay xoolahaas ninka cadliga looma haystay waxay ka dhumeen ninkii mufliska ahay oo lagu xukumay inuu muflis yahay deyntii baa sii kordhayso meeshii lacagtiisii dadkii qoramada loo dhiibi lahay wax loo dhiiba male xoolihiisa kale haddana la raadinaya wayubda-u fi lbayci bilxayawaani ninkii muflisnimada lagu xukumay xoolihiisa waa la aruurinaya qaar waa xayawaanaad qaar waa manquulaad oo waxa weeyaan sida dahabkii iyo alaabtii iyo oo kale iyo macnaha xubuubtii qaarna waa masaakin guryo iyo dhul waay sidee loo kala bilaabaya wayubda-u fi lbeyci bilxayawaani xayawaanaadkiisa ninka xoolihii u lahaay baa horta beec lagu bilaaba geel loo ari dameera wixaasaa la iibinaa maxaa yeelay neefka xayawaanka ah khatarta wajahi kartaa badan midda kale ma-uuno u baahan yahay in la raaco in calaf loo keeno in la daaweeyo u baahan yahay marka khasaare inuu keena loo cabsana asaa laga bilaaba ko waxaa lagu xijinaa kadib manquulaadkii waxaa weeyaan badarkii galeydiisa saliidii manquul waay xayawaan ma aha laakiin shay la dhaqdhaqaaji kara khatartooda badan wayata-anaa bilmasaakini guryaha dib uu isaga dhigaya hadduu ninkan xoolihiisa la xaraashayo oo guryo iyo dhul leeyahay khatar weynku ma imaanaysa kuwaana horta laga soo dhammaynaya biqadri maa yaraa intay arkaan ahlulbasari bihaa dadka macrifada u leh annahaa qad balagat ahmaanahaa beecooda kuma degdego guryihii waxaa laleeyahay wakhtigaasay aada u gadmayaan dhulka wakhtigaasuu gadmayaa ama guryahan intaasaa lagu gadi karaa marka wax dadejinaya male waa la sugaa waxa khatarta keenayane waxa weeyaan waa la horumarinayaa waa intaas waxaa loo dadaalayaa asigana dadaal bay u tahay dadka deynta kulane dadaal bay u yihiin ayb waidaa wajada alimaamu hiqata yuslifuhu lmaala xaala lam yajcalhu amaanatan wain wajada alimaamu hadduu helo madaxweynihii hiqatan hadduu helo yusalifuhu ama yuslifuhu lmaala maalka ou amaahinayo xaalan hadda deyn oo hadda joogto lam yajcalhu amaanatan xoolihii ninkii mufliska lagu xukmiye xoolihiisii markii lacagtii la qaado lacagtii haynteedii ilaa quramadii isaga yimaadiin haddii ay noqoto in nin ammaano ahaan loo agdhigo iyo nin oo mali in la deymi deyntaa la hormarinaya liannahu haddii deyn lagu qaato mar kastaba madmuun waay xoolihiis waa ama ninkaas deynta qaatay maxaan ku yidhaha ha faqiiro ama ha ka dhunto ama ha ka gubato deyn lagu leeyahay waa laakiin ammaanada way ka duwan tahayo haddii ammaanahan loogu dhiibo oo laga xado ama laga xoogo xoolihii meeshay ku baxayaan marka haddii quramada intii ay isaga imaanayaan hala suga la yidhaahdo waxay u baahan tahay in la yidhaahdo waxaa ka fiican in nin lasii deymiyo laakiin deynta waa inay noqotaa xaalan deyn wakti kasta la qaada karo inay noqotaa wayanbagii idaa rufica ilayhi an yushhida anahu waqafa maalahu canhu wإida facala lam yajuz lahu an yabiica walaa yahaba wayanbagii waxaa haboon idaa rufica ilayhi haddii loo kor yeelo annahu an yushhida ninkii xaakimka ahaa
loo keenay bayina iyo markhaati ninkan daynaa lagu leeyahay xoolihiisana waxba ma gudi karaan xaakimow ninkan amar dul saaraa layidhi waxaa haboon an yushhida inuu markhaati u yeelo annahu waqafa maalahu canhu maalkiisa inuu ka joojiyey ninkiyaa lagu leeyahay muflisnimaan kuugu xukumay maalkaadana kuma tasarufi kartid aa laleeyahay macnaha waxaa weeyaan mamnuuc min atasarufi laa bilhibati walaa bilbeyci walaa bishiraa looma ogolo marka maalkaadii ajnabiyaad ka tahay wa idaa facala saas hadduu sameeyo lam yajuz lahu mufliska uma banaano an yabiica walaa an yahaba mar haddii baa lagu yihi xoolahaadii adiga mawquufaad ka tahay ma gedi kartid mana hibay kartid wamaa facala min haada hadduu arintaas sameeyo wixii laga reebay iyo intuu tegay oo meel kale wax ka gaday ama uu hibay fa fiihi qowlaani axaduhumaa annahu mawquufun tasarufkaas waa la joojinayaa fain fadala deyntii haddii wax kasoo haraan markii laga bixiyo jaaza fiihi maa facala waxaa laleeyahay camalkaad hadda waa buray ma dhehayno xoolahaada waa xisaabaynaa deyntaan kaa bixinaynaa haddii deynti kaa baxdo oo waxaan kalood beecisay adiga kuu haraan beecaadi waa jira wاlaakharu ana dalika baatilun qowlka labaad wuxuu leeyahay maba la sugaayabo maadaama ninkan maxjuur calayhi ouba ahaa qaadigii ou soo saaray xukumkaas tasarufkiisa maalinkaas ou sameeyo waxba kama jiraan saasaa laleeyahy ayib qaala اlmusaniyu qultu ana qad qaطca fi lmukaatibi wuxuu kitaab اlmukaatibi ama mukaatib addoonkii xornimadiisa iibsaday wuxuu iri in kaatabahu haddii uu xornimadii ka gato bacda alwaqfi faaddaa uu iska bixiyo lam yactiq macnaha musani qowlkan labaad oo baatil dhahay u aydsan yahay liannahu imaam shaaficiya fi lmukaatib addoonkaadiia ku yiri ni aniga addoonnimadaydii inaan isxurayaan rabaa iga gad waad waafaqday marka haddii uu gado bacda alwaqfi bacda alxajri caleyh hadduu gado hadduu mukaatabeeyo ou mukaatabka inuu shaqeeyo lacagta iska bixiyo lam yactiq oo waxawa tasarufkiisa waa baatil liannahu sadara minhu bacda alxajri ayb qaala shaaficiyu wain aqara bidayni zacma anahu lazimahu qabla alwaqfi fafiihi qowlaani axaduhumaa anahu jaa'izu kalmariidi yadkhulu maca guramaa'ihi wa bihi aquulu wاthaani ana iqraarahu laazimu lahu fii maalihi in xadatha lahu aw yafdulu can guramaa'ihi wain aqara bidaynin ninkii mufliska lagu xukumaa dayn qiray zacama uu sheegay annahu lazimahu deyntaas inay ku laasimtay qabla alwaqfi wuxuu leey dayn hore laygula haayaa jirto oo intaan aniga aan laygu xukuminin muflisnimada aan laygula haayo deyntaas ninkii igu lahay dadkaanu xoolaha iga qaadana wax ka gala saasuu yidhi marka fa fiihi qowlaani axaduhumaa annahu jaa-izun waa bannaan yahay kalmariidi oo kala waay yadkhulu ninkaas daa-inka a maca guramaa'ihi ninkii deynta u qirtay oo qabla alwaqfi ou u qiray yadkhulu maca alguramaa waa lagu soo daraa nimayaa adiga guramadaydi waad koobteen tobanaad tirahdeen nin kalaa jiro oo dayn igu lahaa intaan xajriga lay saarin ka hor hadduu bacda alxajri yahay waxba kama jiraan deyntaas qowlkaas imaamu shaafici wuxuu ri waa midka aniga aydsanahay wاthaani ana iqraarahu laazimu lahu fii maalin iqraarka waa laazim liannahu sayid اladila waay laakiin guramadii ma galaya ninka aada sheegtay inuu deyn kugu leeyahay deyntaasna qabla xajri ay ahayd
deynta waa kugu leeyahay laakiin guramadii ma galaayo. wuxuu kugu lahaan doonaa fii maalika in xadatha lahu, maal dambood shaqaysateed hadday jirto uu kugu lahaanaya, aw yafdulu can guramaa'ihi, ama dadkii hore deynta kugu lahay markaan bixinno hadday wax ka soo haraan ninkan dambood gadaal ka ictiraaftaan siinaynaa, laakiin guramadii lamid ma aha. intaas weeyaan. waqad dahaba bacdu lmuftiina waxay ku tageen ilaa ana duyuuna almuflisi, ninka muflisnimada lagu xukumay deyntiisa oo ilaa ajalin ahayd, taxilu inay imaanayso aw taxilu xuluulahaa cala almeyiti, taxilu xuluuluhaa cala almeyiti, ninkii meyidka ah inay kusoo degdegayso. wuxuu leeyahay ninkan oo mufliska lagu xukumay laba nina deyn ku leh, nina deyntiisii waqtigeedii waa taagan yahay, nina bilaa ka dhiman. asagoo muflisa oo deyntaa lagu leeyahay buu sii dhintay. waxaa laleeyahy maadaama ninkii u dhintay dimadiisii wax laguma lahaa karo, marka waxa weeyaan ninkii deyn oo waqtigeedii la gaarin lahay xataa hadduu jiray waa soo hormaraysa. taxilu xuluuluhaa, oo ninkii deyntiisa taagneed iyo ninkii deyn waqtigeeda la gaarin ahay labadiba hadday isla imaanayaan. qowlkaas waxa weeyaan waa qowlu fuqahaa'i اlamsaar, liannahu ninka meyidka ah meel loo raacda ma leh. maalkiisa maanta haddii quramada loo qeybiyo, ninkan deyntiisa mu-ajal ahay nimuu sugamaba jirtabo. marka intii meel oo waxba ka jirin loo diri lahay waxaa le kaalay deyntaadii 6 bilood ka dhineed hadda kuwaanaad la mid tahay, kaasaa raajixa. markaasuu uri waqad yaxtamilu waxaa suuragale an yuakhara almuakharu canhu, ninka oo deyntiisa dib ay u taalay dib in loo dhigo, lianna lahu dimatan buu leeyahay. yacni ninka meyidka ah deyn waa lagu leeyahay oo hadhowti dambe warasadiisa wax ka bixinayso. qaala wuxuu uri waqad yamliku, inuu wax milkiyaaba laga yaabaa haddii ay caddaatay ninkaas meyidka aabbihiis inuu ka hor dhintay xoolihii waa milkinayaa. wاlmeyitu baطla dimatuhu laa. waqad yaxtamilu an yuakhara almuakharu canhu liأnna lahu dimatan. waqad yaxtamilu an yuakhara almuakharu canhu, ninka deyntiisa dib dhacday in dib loo dhigo waa suuragal. lianna lahu lilmuflisi اlxayi dima buu leeyahay. qaala wuxuu uri waqad yamliku, inuu wax milkiyaa laga yaabaabo. wاlmeyitu baطla dimatuhu walaa yamliku bacda almowti. sidaa daraaddeed hadda qowlkan dambo allahuma salli calaa muxamed aan ku laabano. waqad dahaba bacdu muftiina ilaa ana duyuuna almuflisi, duyuunta mufliska ilaa ajalin, deynta ninka mufliska lagu leeyaho dib u dhacday, dadaa yihaahdeen taxilu xuluuluhaa cala almeyiti, taxilu cala almuflisi alxayi xuluulahaa, hayo taxilu xuluulahaa dhe markaas, taxilu cala almuflisi alxayi xuluulahaa cala almeyiti. marka taxilu faacilkeeda duyuuntii waay. marka ana duyuuna almuflisi, duyuuntoo ilaa ajalin ahayd, taxilu duyuuntii way xaal bay isu bedelaysaa oo ajalkii ka bixi. xuluulaha cala almeyiti, ninka dhintay siday deyntii mu-ajalka oo lagu lahay ay xaal u noqonayso, yaa mufliska nool deynta lagu lahayo oo muddaysneed muddanimadii waa ka bixi, xaalay isu bedelay. labadiiba marka xaalay noqonayaan qowlkaas
waqad yaxtamilu an yuakhara almuakharu canhu waxaa dhici karto ninkaa mufliska ah oo dayn laba dayn lagu leeyahy mid xaal ah iyo mid mu-ajal ah, midka mu-ajalka ah in dib loo dhigo la yihahdo waqtigeeda alla hana gaarsiiyo, midaan xaalka ah lala dhaqmo. lianna lahu lilmuflisi alxayi dimatan uu leeyahay. qaala wuxuu iri waqad yamliku inuu xoolaba uu milkiye, nin hadduu xoolo ku sadaqo war ninkaan dayn badanaa lagu leeyahay, nin muslim inuu yihahdo intaan qaado. wاlmayitu baطla dimatuhu walaa yamliku bacda almowti. qowlkaas sidaas wa. qaala almusaniyu qultu ana hada asaxu, in la kala qaado oo ninka mufliska ah oo xayiga ah dayntiisa tii xaal ah lala dhaqmaatan mu-ajalna waqtigeeda, midka hadduu meyid noqdona dayntii mu-ajalkeeda iyo tii xaalka isku mid ay noqonayaan. sidaasuu yiri. wa bihi qaala alimaamu shaafici fi limlaa'i buu sidaa ku yiriyey. qaala shaaficiyu walow juniya calayhi camdan lam yakun calayhi akhdu lmaali ila an yashaaa. walow juniya calayhi cala lmuflisi camdan, ninkii mufliska ahay baa dhaawac la gaarsiiyey si ula kac ah, lam yakun calayhi waajibku ma aha akhdu lmaali maalka inuu qaato ilaa an yashaaa inuu doono mooye. mathalan xibinaha laga gooye, gacan baa laga jaray, ninaa kas gacanti kaga gooye, marka wuxuu heli karaa inuu gacantiisa qisaasto uu asna gacan ka gooyo iyo inuu maal ku bedesho, labadaba uu diyo ku cafiyo waa heli karaa. marka lama dhahayo war adiga muflisaa tahay, dadaa dayn kugu leh, qisaas haddaad qaadatidood gacan kala goyso wax faa-iidoon ka helayna ma lehe, waxaa waajib kugu ah maal raalli ku noqo lama dhahayo, liannahu xaq ilaahay uu sii waayo. ama qisaasta ha qaato, hadduu qaato dadka quramada waxba ka faa-iideysan maayaan, laakiin maal hadduu qaato diyo e markuu sii qaadana waa laga sii qaadana idani. qaala walaysa cala almuflisi an yuaajira wadu lcusrati mundarun ilaa maysaratin. walaysa cala almuflisi ninkii muslimnimo lagu xukumay korkiisa ma aha an yuaajira inuu naftiisa ijaareeyo. lama dhahayo xoolihii aada lahayd waa la kala qeybiyey, dadaa soo hara weli dayn kugu siile, marka niyahu waxaa qasab kugu ah shaqaale inaad noqoto naftaada ijaaraysid, lama dhahayo buuri imaamu shaafici. wadulcusrati ninka faqriga uu saaxiibka ene mundarun ilaa maysaratina la sugayaa, ee la dhihi maayo sidii dadka lacagteeda loo celiya maqaayad ka shaqeey ama dhulkan ka xamaal, annagaa shaqa kuu soo raadinaysa waxaada u helna lama dhahayo, xur buu u yahay. laakiin jumhuurta maalig iyo axmedi waxay qabaan yajibu calayhi an yuaajira nafsahu, sidii xuquuqda bani aadamka uu isaga bixiyo yaa waajib ku ah lagu leeyahay inuu naftiisa shaqaaleeyo. imaamu shaaficina xaggaasuu maray. markii nusuusta loo fiiriya nebiga wuxuu iri ninkii markii xaj lagu xukumay khuduu maa wajadtum calayhi walaysa lakum ilaa hada buur, wixii aada xoolihiisa heshaan qaata kala qeybsada, wax kale oo aada ku leedihiin oo kale ma jirto. macnaha ma dhihi nebiga marka ninkan qaatee beerihiina ku fasha ma dhihi. wayutraku lahu min maalihi qadru maa laa ghinaa bihi canhu waaqalu maa yakfiihi waahlahu yowmahu min aطacaami waasharaabi. wayutraku lahu waxaa looga tagaa min maalihi qadru maa laa ghinaa bihi canhu, wuxuusan ka deeqtoomi karin waa loo dhaafaa. haddii la yidhaahdo ninkii deynta lagu lahaayo muflisnimo lagu xukumay xoolihiisa la iibiyo, wixii uusan ka maarmaynin waa loo dhaafaa, oo waxaa weeyaan kutubtiisii, maradii oo cawrada ku asturanayay, gurigii ijaarka uu ahaa, waxaas waa loo dhaafaa. wa aqalu maa yakfiihi wa ahlahuna waa loo dhaafaa yowmahu maalintiisa min aطacaami washaraab. asiga iyo ilmihiisana maanta waxay cuni karaan, misigadii dhulka guriga tiili waa la qaada waa la iibina, wixii maanta ku filan unbaa loo reebaya keli ah.
وإن كان لبيع ماله حبس أنفق منه عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيه من نفقة وكسوة. وإن كان hadii uu yahay لبيع maalihi xabsun maalkiisa in la gado daraaddeed haddii meel lagu xabiso unfiqa minhu calayhi maalkiisa maalka laga nafaqaynaya. yacni fardihii waa lasoo qaaday ou lahaa suuqiyaa la geey, suuqi waxaa laga yaabaa 2 maalmood inay joogaan, labadaas maalmood ciddii haynaysa meesha lagu haynaya lacagtiisaa laga goynaa ninka mufliska ah. hadduu haynin sidaas oo kale unfiqa minhu calayhi cala alxayawaani almaxbuusi wa calaa ahlihi kula yowmin aqala maa yakfiihi min nafaqatin wa kiswatin. intay xoolahaas joogaan oo xoolihiisa aan la gedin asiga iyo ahalkiisa nafaqada maalintaas ku filan waa laga siina, maalinkii la gada ilaahay qabaan. kaana dalika fii shitaaءin ha ahaado xagaa aw sayfin jiilaal xataa yafruga min qasbi maalihi bayna guramaaih intuu ka dhammaado, xataa yafruga intuu ka faaruq noqdo min qasbi maalihi maalkiisa inuu qaybiyo bayna guramaaih. ninkii mufliska ahay intuu xoolihiisa ilaalinayo beecinayo ku mashquulsan yahay deynta iska bixi xoolihiisu wax kasii cuna, maalinkay dhammaadaanne tawakal cala allah alle deynti waa lagaa bixi. wain kaanat hiyaabuhu kuluhaa gawaali mujaawisata alqadri ushturiya lahu min hamaniha aqalu maa yalbasu. aqsudu man huwa fi mithli xaalihi waman talzamhu ma'uunatuhu. wain kaana hiyaabuhu hadday tahay dharka uu xeran yahay kuluhaa gawaali dhar aada oo qaali u ah, mujaawisata alqadri qiimahaaduna aada ay u sareeyaan, ushturiya lahu waa loo iibiyaa min hamaniha aqalu maa yalbas. wax la guntada waxa ugu yarbaa inta la iibiyo dharkii qaaliga ahay dhar yaroo rakhiis a loo soo gada alle ma adigina isku faafaanis dhar qaali ah leanno deymaa lagugu leeyahy. kow markaasuu iri aqsudu man huwa fii mithli xaalihi, dharka loo gadayo waa dharka asiga dadka uu la mid yahay ay xirtaan. haddii dhar qaali u wato hoosaa loo soo dhiga. ayib waman talzamhu nafaqatuhuna waa la mid, xoolihiisa markii laga iibinayo asiga iyo caruurtiisa iyo dumarkiisa dharka ay wataan waa loo dhaafaya. ninkii nafaqadiis ku laasimtay midkii ayaga kamid oo dhar qaali ah watane inta la gadaa dhar asiga munaasib u ah loogu soo gadaa, qiimaha u dhexeena waa laga qaadanaya. wain maata kufina min ra'si maalihi qabla alguramaa waxufira qabruhu wamiina biaqali maa yakfiihi. wain maata hadduu dhinto mufliskii kufina min ra'si maalihi maalkiisa intaan wax laga bixinin laga karfanaynaa qabla alguramaa, deynta intaan laga bixinin asaa horta xaq u leh karfantii qabrigii wixii asaa lagu bixinaa. kow waxufira qabruhu ay min maalihi, wamiina waxaa lagu maalgeliyaa ma-uuna loo jeedaaye biaqali maa yakfiihi waxa asiga ku filan inta ugu yar, qabrikan ugu yar, karfantan ugu yar, saas waa. wakadalika man yalzamhu an yukafinahu, ninka mufliska ah qofkii inuu karfaniyo waajib ay ku ahayd asna maalkiisa laga kafaninaya. uma qusima albaaqi bayna guramaaih, markii karfantii qabrigii wixii laga bixiyo intii kale markaasaa la siinaya dadkii kale. wayubaacu calayhi maskanuhu wakhaadimuhu liana min dalika buddan. wayubaacu calayhi cala lmuflisi maskanuhu gurigiisa waa la iibinaya, wakhaadimuhu adoonka uu adoogayana waa la iibinaa, liana min dalika buddan midkaas waa laga deeqtoomi karaa. waxaa weeyaan haddii ninkan muflis lagu xukumo oo guri weyn ku jiro waxaa leeyahy gurigan waa la iibinaa, guri ijaar e gal,
أدون كان ولا إيبنا لأنه خدمة وما باهند لأنه دينا الأولى النفط هذا خدمي ولا كافتومي كرا أحمد إسحاق قبل لقم إيبنا وإن أقام شاهدا على رجل بحق ولم يحلف مع شاهده فليس للغرماء أن يحلفوا ليس لهم إلا ما تم ملكه عليه دونهم وإن أقام شاهدا هدو مرخاتي لي ماذا مفلسكي على رجل أولي مدي بحق أو كليه ولم يحلف مع شاهده مدارن فليس للغرماء ملا أن يحلفوا إن دارتان ليس لهم للغرفاء ملها إلا ما تم ملكه نكا مفلسك وحو ملكي ملكه عليه أوياي دونهم نبا نكي مفلسك أهاي oo deymanka badan lagu lahaay waronimiyo waraan idin hay ninaan anigana deyn kuleeyahay ninkiibuu tagay wardeyntaasaan kugu leeyahay ma igu lihid buuri hal ninoo markhaati abuu keenay oore ninkaan deyntaas inuu kuleeyahay markhaati ma iga tahay haa buuri maxaa laga rabay markaan mufliskii dhaarasho inuu ku daro siduu maalka lianna waxaa weeyaan qada nabiy sala allahu alayh wasalam bishaahidin wayamiinin ay ahayd xadiidkii muslim marka inuu dhaartay ahayd dhaartii uu iska diiday marka xoolihii ma heli karo liannahu hal shaahid laguma qaado karo in nin la keeno ama laba naag ama hal nin oo iyo dhaar lagu kabo yaa maal lagu qaataa dhaartii asoo heli karo yuu ka joogsaday marka nimankan quramada male waryaa noo dhaaro xoolaan kugu leenahay sin xoolahaan u qaadano ma dhihi karaan kuma qasbi karaan koo ayaga inay yidhaahdaan bedelkiisa anaa dhaaranayno xoolaha annagaa iska leh liannahu annagay noo soo wareeganayaane annagaa dhaaranayna inay yidhaahdeenna ma laha marka wa in aqaama shaahidan calaa rajulin uu markhaati kul u keenay bixaqin inuu ku leeyahay walam yaxlif mufliskiina ma dhaaran maca shaahidiisa oo xoolihii u mutaysta dhaar kuma kabin فليس للغرماء أن يحلفوا بدلا عنه إن دارتان ملها ليس لهم ملها إلا ما تم ملكه عليه وحو مركو ملكيو كدب يا ملكنا دونهم أيها السكودود وحويان حولها مركو دارتو هذا مرخاتي اللي ماذا دارتو xoolahaas marka tama milkuhu calayhi waa ka qaadanaya laakiin xoolihii haddii markhaati loo helo dhaarti la waayey marka ma laha annagaynuu soo wareegi lahaayeen annagaa u dhaaranaynane laga yeeli maayo wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin